بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرفت لكلنتي ونأكسر وعن مالك استأذك جوكتنا دونك إلهي سبحانه وتعالى دنب جنيه دنب والدكنا ضعفه ما أنت وحنو كشكين دونا قفك الأورنجري دجال ولا ليال وخلق إلهي سبحانه وتعالى أبو ري سلامر كان وحوي وحو إلهي أبو ري وحو وشر بدن نبي مجر إلا أمدي سوء قدقي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نوح نفري أتحيات كودن بيسالات كستا إن إلهي سبحانه وتعالى كما قالنا هذا الدجال مقلنا محوها ياس الصوركي ما أنتم حناهنا حديث عجيبة ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وكورينيو سحابي كمدا سحابي ديسا معلم المها كمدا أي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحسكوا ويا سحابي ديسي وحنا يروح ينشر يا شاكو سوحي تهي نينكي الأورنجي تميم الداري أو كريستان أها أياسو إسلامي وحنا يشير شاكو وفقدي شاكري ينشر الجري wuxuu yiri badda ayaanu furnay anagoo soddon nin ah isla markaana waxaan la ciyaaray oo na wareeriyay mataqaana hirarki waxaan ku harqanay jasiiradii markaan soo galnay ayaa waxaan ugu nimaanay wax aad u weyn oo timo badan leh oo duf badan leh oo hor iyo gadaal aan laga kala garan karin waxaan ku niri baan niri halaagaade maxaad ahayd waxay tiri waxaan ahay jasaasa markaas wuxuu ku yiraahday jasaasa maxay tahay waxay tiri nimayow dhageysta warkiina waxa aad ugu baahan qof ku jira gudahaas nin gudaha ku jira ayaa u baahan nin markaan maqalnay ayuu xidhay waxaanu sinay baashu waa shaydaan waanu carabnay buu yiri markaan u soo galnay ninkii waaba qofku ilaahay abuuray qofka ugu weynaa abid aragnay ayuu yiraahday marka gacmihiisana saasay ahaayeen oo garka ay saa u surnaayeen lugaha ilaa mataqaana anqowgana bira ayaa uga xirnaa wuxuu ahaa qof aad u weyn oo adag buu yiraahday markaas waxa ku niraanay war halaagaade maxaad ahayd markaas wuxuu yiraahday war heedhaha ii sugo bal idinku maxaa ahaydeen waxay yiraahdeen anagu qowm waxaan nahay carab ah badda ayaana la soo ciyaartay oo waanu soo jahwareernay ilaa aan halkan ka nimaanay bahal aan ka yaabnay oo in u malaynay weynay shaydaan ayaan waxaan ku aragnay horay waxayna soo tilmaamtay halkan joogtay markaas wuxuu ku yiraahday war ii warrama waxaad iga warantaan meeshii beertii la oran jiray baystaan ku taalay warrama waxay yidhahdeen maxaad naga weydiinaysaa wuxuu yidhi weli ma la beertaay oo timirti ma bixisaa markaas waxay yidhahdeen haa marka wuxuu ku yidhahday waxaa laga yaabaa inaanan timir dambe laga beeran meeshaas oo ay beertaa baaba'do markaas wuxuu ku yiraahday waxaad iga warantaan meeshaas buxayratu la yiraahdo tabariya iga warrama marka waxay ku dhahaan maxaa naga weydiinaysaa waxay biyo ku jiraan biyo badan bay leedahay wuxuu yiri waxa laga yaabaa in biyaha ka angagaan oo ay noqoto ibr noqoto oo waxba lagu arag markaas wuxuu ku yiraahday waxaad iga warantaan aynu zuqra waxa la yiraahdaa iga warrama aynu zuqra waxa la yiraahdaa waa magaalo ku taala Sham iyo meelahaas lagu murmaa waxay rabtaa ha ahaatee iga warrama waxay maxaa naga weydiinaysaa waxay biyo ma laga cabaa wali biyo ma leedahay oo biyo ma laga beertaa markaas wuxuu yiraahdeen haa wuxuu yiri waxaad iga warantaan nabiga aan waxba qorin waxna akhrin wuxuu la jeedaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa lagu suubiyay waxay wuxuu ka soo baxay Makka wuxuu la degay Madiina dadkiina ma taqaana markaas wuxuu yiri aqaatalatu al-arab ma la dagaalantay markaas wuxuu yiraahday nacam markaas wuxuu yiri kayfa sana'a bihi muxuu ku suubiyay marka way adeeceen wayna yeeleen dajaal baa wuxuu yiri wallahi waxa u khayr badan buu yiri in nabigaas adeecaan oo ay raacaan subhanallah wa masiix dajaal wallahi marka wuxuu yiraahday waxa ina sheegayaa buu yiri anigu waxaan ahay masiix dajaal ayaan ahay waxaana laga yaabaa oo dhow buu yiri in aan soo baxo oo aan dhulka dhan maro magaalo ka tagi maayo ilaa waan tagayaa marka waxaan joogayaa 40 habeen ayaan joogayaa marka laga reebo مكة iyo طيبة marka laga reebo labadaas waa laga xaraantimay ma gali karo waxaana jooga malaa'ig ay joogto ay hor ilaalinayso nabiga sallallahu alayhi wasallam baashi wata intuu minbarka ka taagay ayuu wuxuu yiraahday hadhihi taybatu tani taybadu sheegay waa Madiina nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahday soo sheekadani lama sheegin soo sidani laguma sheegin markaas wuxuu yiraahday nacam nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa ay ajab galiyay oo ay farxad galiyay in sheekadii ayna sheegi jiray ay waafaqday sheekadii Tamiim ad-Dari radiyallahu anhu ilaahi subhanahu wa ta'ala karaale noqday walaal qisada waa qisa cajiib ah runtii ilaahi subhanahu wa ta'ala waxna ka magan galinaa masiix dajaal ayaan ka magan galinaa iyo sharkiisa ilaahi subhanahu wa ta'ala ahna naxariisto maalintaasna ilaahi nama joojiyo dad badan waxa arkaysaa kule maalinta qiyaamaha ayaan sugayaa maalintaas oo maalin aad u shar badan ilaahi subhanahu wa ta'ala كهر وحاول يسننا نجوا مسلمين أو إيمان كنا قلنا إنه نقصده أو لكن ناس رح الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.